mayerka magaalada gabilay maxamed amiin cumar cabdi iyo mayerka xigeenka magaalada gabilay oo kala hogaaminayay maalmihii ugu dambeysay garabka aqlabiyada golaha deegaanka ee ka soo horjeeda mayerka magaalada gabilay iyo garabka taabacsan mayerka ayaa markii ugu horeysay maanta ku kulmay shaqadoodii caadiga ahayd ee loo igmaday golaha deegaanka oo ahayd dhagax dhig garoomo loogu talagalay inay ku ciyaaraan carruurta dugsiyadaasi barata kadib markii ay dhammaysteen shaqadoodii ayaa warbaahintu wax ka weydiisay maayar ku-xigeenka magaalada gabilay oo maalmihii ugu dambeysay ka soo dhex muuqday islamarkaana majaraha u hayay garabkaasi aqlabiyadda golaha deegaanka ee maayarka sida weyn uga soo horjeeda ayaa wax laga weydiiyey waxa iska bedelay waxaana hadalladiisii ka mid ahaa mar walba horta waxa ka muhiimsan waxa weeyaan iska qabsashada iyo dhalitaanka iyo qof la dhalaylo oo waxyaan ku dhalilo shaqada iyo sharciga wax walba waxa ka muhiimsan waxa waaye in wixii bulshadu noo egmatay inaanu ka shaqeyno horumarka gobolka iyo degmada mar walba ayna gelin horta shaki waxaya labada qof way isqaban karaan Carabiga labada daawad ba isqaban kara taasi micnaheedu ma aha waxa weeyaan waxaan ka soo horjeednaa horumarkii deegaanka iyo gobolka aad baad maasanta sidoo kale maayirka ayaa isagana wax laga weydiiyey sida uu arko qaraarka maxkamadda sare ku ayiday warqadii wasaaradda arrimaha guduhu kaga joojisay golayaasha deegaanka degmooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland fadhiyada aan caadiga ahayn iyo waxa ugu baaqaya garabka ka soo horjeeda ee dacwaddan geeyay maxkamadda waxaana hadalladiisii ka mid ahaa qaraarka maxkamadda ka soo baxay waxa weeye dacwadda xildhibaanada golaha deegaanka ee gabilay ay gudbiyeen inay runtii aanay waraaqda ay ka soo horjeedo oo aanay waraaqduna ay ku socoto dalka oo dhan iyaguna aanay wakaalad dalkii oo dhan aanay haysanay cid golo gaar ka socota ay tahay runtii waa qaraar maxkamadeed anagu waxaan u aragnaa wax sharci ah oo sax ah wax kale oo ku jiro oo u aragnaa ma jiro dacwad bay gudbiyeen maxkamadiina jawaab bay ka soo saartay qaraarka wuxuun baan u aragnaa qaraar sharci oo wax weey iyo waajibaadka maxkamadii sare anagu runtii xildhibaanadayada mar walba waxaan ugu baaqnaa in golihii lagu soo noqdo oo la wada shaqeeyo waxa weeye golaha iyaga waa ka warqabtaano khilaafkaas ay jiray khilaafkaasi jirayna suuragal weyn noqon weyday iyagoo garabkaasi ka dhaga adeegaya inaanu dhexdeeda ku dhameysano dhexdeedii markay ka suuroobi weydayna waxay u gudbiyeen hay'adaha khuseysay marka runtii waxaanu jecelayn haday arintu tahay la ummad baana soo dooratay mas'uuliyad baana saaran waxbay ummadina soo dooratay naga sugaysaa haday arintu tahay waxay ku wanaagsanayd dacwadii maalihi ay khuseysay baabad u gudbiseen jawaabteedana suuga ummadana u shaqeeya saasay ku wanaagsanayd saasaananu imikana ka filana insha Allah taala waxaan rajaynayaa hawlahaasina khayr iskaga dhamaan doonaan waa Cabdisalaan Maxamed Bade bulsha TV gabilay